qoysas tir ahaan gaaraya 210 ruux oo ka soo carray abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolada dalka ayaa maanta helay gargaar iskugu jira raashin iyo biyo waxaana gaarsiisay hay'adda Gift of Gifters oo ka shaqeysa arrimaha samafalka bariga ee bartamaha Afrika. madaxa bariga ee bartamaha Afrika hay'adda Gift of Gifters Dr. Cabdirasaaq Maxamed Xaashi oo warbaahinta kula hadlay halkii ay ka wadeen raashin qaybinta ayaa waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed laga rabo in iyaga dhexdooda ay isgacan qabtaan oo u soo gurmadaan bulshada ku dhibaataysan qaybo ka mid ah duleedka magaalada Muqdisho. maxaan soo dhaweynay runta dad abaaraha ay soo barakiciyeen oo cusub oo tuulooyin barkood ka shaqeyn haynaba aan barkood ka garanno dadka hadda inta joogo. wasaaradda arrimaha gudahana way nala joogtaa sharaf Allah siiyo waxa la dhahay waan soo wada gurmanay dhamaanteen insha Allah raashin iyo wixii ku degi lahaayeen iyo biyihii waan isku darnay wixii kale oo aan sii qaban karnana waan qabanaynaa inkastoo hadda aan ku mashquulsanahay banaanka Muqdisho iyo meelaha hadda abaaraha ay ka dhaceen oo Gift ay aad ugu mashquulsan tahay wixii Soomaaliya isku qaban karno aan isku qabanno waayo Soomaali mar hore maxay tiraahdeen dhuubkiisu buu wax kaga dhargaa mise biyaha kaga dhargaa maxaa weeye wax noo maqan oo adduun oo sugayna ma jirto waxaan dhacayana waan lagu wada fiirsanaya hadamooda haysiin in aan lagu fiirsan haynin. agaasimaha samafalka wasaaradda arrimaha gudaha Sahra Cali Maxamed ayaa dhankeeda waxay sheegtay in hay'adda Gift ay dadaal badan ku bixisay sidii ay u gurman lahayd shacabka Soomaaliyeed sidaas oo kalena looga baahan yahay hay'adaha kale in ay ka qayb qaataan u gurmashada dadka ay saameysay abaarta. ummadda Soomaaliyeed waxaan u jeedinaynaa in ay hay'adaha waxaan u jeedinaynaa inay ku daydaan hay'adan Gift of the Givers kaalmada ay sameysay waxaan kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogno ugu baaqaynaa in ay walaalahooda muslimiinta ah ee abaarta ku dhufatay inay kaalmo siistaan ninka maanta xoolo haysta bari ma haysanayo hadii uusan walaalkiis uusan maanta kaalmeyn. qaar ka mid ah dadkii helay deeqdaasi raashinka oo ay maanta gaarsiisay hay'adda Gift of Gifters ayaa ka mahadceliyay gargaarkii ay heleen. bismillaahirrahmaanirrahiim Gift maadaama una ka dhawaad ku jirno oo rafaadsan oo salacsan oo noo gargaarta Ilaah baraki iimaan si maadaama unu dhab qabno oo noo gargaarta baraki iimaan Allah siiyo garbkeedana Allah galo waa mahadsantiin biskileet iyo badar aalisiye waa mahadsantiin Ilaah ugu mahadinayna waan u mahadcelinayaa anigoo magacayga Faadumo Cabdi Bakayl laayo hay'adda Gift waxaan ugu mahadcelinayaa dhibaatadana haysi maanta oo noogu soo gargaartay oo alaab iyo cunto ay na siisay oo ka badan aan ka rajeynayno oo Ilaahayna hadoo nooga soo qaado intaan Ilaahay noo sii calfo. dadkani maanta la gaarsiiyay deeqda gargaarka ee raashinka ah ayaa ah dadkii ugu dambeeyay ka soo cararay abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Baay, Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Maxamed Cabdi Naasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.